daya iftiinka ana barna marka hore waxaad ogaataa xeerka soo socda xarafka v wuxuu u taagan yahay vowel oo ah shaqal sida a e i o u iyo xarafka c wuxuu u taagan yahay consonant oo ah shibane micnihii xarfaha shibanayaasha ah okay marka xeerka muxuu dhahayaa kow haddii ereyga uu ku jiro hal xaraf shaqal ah oo keliya waxaa lagu darayaa ing keliya tusaale do waxaa u dambeeya hal shaqal keliya waxaan ku dareynaa ing keliya waxaa la dhahayaa doing laba haddii ereyga ku dhammaado xarafka e oo xarafka ka horeeya e uusan ahayn shaqal waxaan ereyga ka saaraynaa xarafka e marka aan ku darayno ing tusaale make ereygan waxaa u dambeeya e xarafka ka horeeya k shaqal maahan marka waxaan ka saaraynaa e oo waxaan ku daraynaa ing waxaa la dhahayaa making saddex haddii ereyga ku dhammaado vc micnihii xarafka ugu dambeeya waa shibane midka ka horeeyana waa shaqal v waxay u taagan tahay vowel micnaheeda shaqal c waa consonant oo ah shibane sidaan horey usoo dhiganay marka haddii ereyga qaabkan uu noqdo xarafka ugu dambeeya ayaa 2 jeer la qorayaa markii ing lagu daraayo tusaale sida plan xarafka ugu dambeeya waa shibane n midka ka horeeya waa shaqal a markii ing lagu daro waxay noqonaysaa planning sidoo kale ereyga sit xarafka ugu dambeeya waa shibane t midka ka horeeya waa shaqal I markii ing lagu daro waa sitting afar haddii ereyga ku dhammaado vvc micnihii xarafka ugu dambeeya waa shibane labada xaraf ee ka horeysana ay yihiin shaqal ereyga markuu qaabkan noqdo xarafka ugu dambeeya 2 jeer lama qoraayo marka ing lagu daraayo ereyga tusaale sida gain xarafka ugu dambeeya waa shibane n labada xaraf ee ka horeysa waa shaqal ai markii ing lagu daro wuxuu noqonayaa gaining 5 haddii ereyga ku dhammaado labadan xaraf isku xiga ie ee shaqal ah waxaan ereyga ka saaraynaa labada xaraf kadibna waxaan ku daraynaa yin ying tusaale lie labada xaraf isku xiga ee ugu dambeeya waa shaqal ie marka waxaan ka saaraynaa ie oo waxaan ku daraynaa yin ying waxaa la dhahayaa lying 6 haddii ereyga uu ku dhammaado saddexdan xaraf mid ka mid ah ee ah wyx wyx xeerarka aan soo dhaafnay looma adeegsan karo tusaale play xarafka ugu dambeeya waa shibane y wuxuu ka mid yahay saddexda xaraf wyx xarafka ugu dambeeya 2 jeer lama qoraayo marka ing lagu daraayo ereyga xitaa haddii uu yahay xarafka ka horeeya xarafka ugu dambeeya mid shaqal ah a waxaan dhahaynaa playing waa hagaag haddii aad si fiican u fahantay xeerka jadwalkan waxaad ka jawaabtaa su'aalaha layligan